الله عنجرة أنا كدوة عنجير أنا كدوا لكن هذا كويس عنجير ما تبي هذا حاجة أبيرة كأنك لاي روجا ويرا ما شاء الله إله كويني عنجير وقرك باستو بريس صور وحول بو أذان وكرنيسيت إن شاء الله إلهي وكويني waxa uu helay waqti qurux badan oo gurigiisa uu ku joogo isla markaana uu ku heliyo awlaad uu dhalay iskama seexan sariir isma saaran lugaha hal ii keena waxa cunana muusan oran ee waxa uu noqday hogaamiyaha guriga ninkii galay xishood ma gartee xawaalahas xaafad moodaaye xawaalahas xaafad moodaaye waa aabbe jikada gala carruurtiisana u diyaarsha cuntada nuuca ay jecel yihiin inay cunaan baasta karinta ayuu ku caanbaxay bariiska iyo cuntooyinka kalena waa isgaranayaan أبو بس ما كرينوزة باستا كريمة معاه بريس ما رفتال ها بريس الله بريس أنا كريسكيز مكسر مقاي ما كشقيها kaligiis gooni waxu cun maahan mana yaqaano cuntooyinka la kala sarreysiyo ee qaaska u aabbaha ee waxa uu saxanka cuntada bartanka ay wada dhigtaan carruurtiisa carruurtana mid ka caajisa ma jira goobtaasi ruux kasta isagoo caloosha buuxsaday ayuu fadhiga ka kacaa si uu u soo farxasho uma ekaado aabbahan inta marna waa nadiifiyaha dharka carruurtiisa ayuu wasaqda ka caabiya oo waa midaan ka faanin baafka iyo mariska oo madana waxa uu arkaa xalka lagu suulin karo wasaqda أصبح كستان لي بعد قيادي در لي ما دقي محاول معاو دقوا در أنا أي درك دقاي العق من ويسا العق ما يسا حبيب أبي حبيبو هذا بكاير تابي حبيبو ما دار دكتور تو علمي خميس كا دكتور الذي يفوق دقاي qoyskan oo barta TikTok-ga muuqaaladooda la soo dhigay ayaa soo jiitay dad badan maadaama ay yihiin qoys farxad wehel u ah aabbaha ayaa mar waliba u dhimriya carruurtiisa waxaana uu muujiyaa naxariis badan waa uu caawiyaa waxaana mar waliba uu noqday mid ka dhex muuqda familkiisa sidoo kale aabbahan waqtigiisa ugu badan waxa uu ku bixiyaa carruurtiisa mid qosla mooye ma jiro mid ilmeynaya oo gurigaasi muuqaal loogu soo duubay taas oo ku tusinaysa in mar waliba farxadda aabbaha qayb weyn uu ka qaato allow inta aabbayaashooda ay ka geeriyoodeen oo dunida aanaysan u joogin u naxariiso intay u nool yihiinna caafimaad iyo cimri dheera u sii mar waliba ku xirnow Sharmaarka Media.